رحاك سوف تدار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. يا مسلمون ومن سواكم للحمى إن كشرت عنا به. qofka mukriha waa soo sheegnay, waxaan nidhi haddii diinta qofka lagu khasbo xabadda foorka laga saaro waa la ogol yahay inuu qofka cudur daarto markaa inuu ku hadlo waxyaala kufri ah. ilaah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mudma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabu min allah walahum cadaabun cadiim. allah wuxuu leeyahy subxanahu wa tacaala qofkii ilaahay ku kufriya bacda iimaanihi markuu alla rumeeyey kadib qofkaa waa halaagsamay ilaa qofkii lagu khasbay qalbigiisana uu ku xasiloon yahay iimaanka ma aha. walaakin man sharaxa bilkufri sadran, laakiin ninkii gaalnimadii laabta ku sharxa oo qalbigiisa ay ku sharxan tahay ku quman tahay. nin baa wuxuu yidhi yaa la yidhi soomaaliya joogo baa wuxuu yidhi yaa la yidhi hay-ad gaalow ka yimid, markaasuu samafal u geeyey dadkiiyo waxbuu siiyo agoontii dadkii dhibana wuxuu siiyey. markaasuu la hadlay dadkii wuxuu yidhi waxaa idin siiya aad cunaysaan iyo waxaan aad haysataan soo kuwa aad leedihiin ma aha hayri almaqduubi calayhim wala daaliin. ilaahu jidka kuwa luusaana marsiinin kuwaad leedihiin nasaaro waad leedihiin soo ma aha. kufri way cad, waa kufri cad. ninkaa wuxuu ku sharxmay qalbigiisa nasaaradu inay ka khayr badan tahay muslimiinta, diintooda inay ka khayr badan tahay nasaarada ay haystaan diinta islaamka, inaysan lunsanayn ayuu rumaysan yahay qofka oy hanuunsan yihiin. waa qof la yaqaano reeb in hebel ka dhashay kafara billaah. waa qalbigiisu wuxuu ku sharxay in ay lunsanayn oo aysan ahayn dad lunsanaysan. marka islaamku marka la fiiriyo diinta islaamku waa shareeco buuxda waaye. caqiidada haddii la yidhaahdo caqiidada waxay ka hadlaysaa waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala la xiriiro sifaadkiisa iyo towxiidkiisa. waxay ka hadlaysaa caqiidada nebiyaashay ka sheekaynaysaa waxyaalaha nubuwaadka la yidhaahdo. caqiidada waxay ka sheekaynaysaa bacfiga iyo jazaaga, soo bixinta iyo sabamarinta maalinta qiyaame. shareecada islaamku waxay nidaaminaysaa cibaadooyinka sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka. aadaabta iyo akhlaaqda islaamku waxay habeynaysaa xagga maaragtay runta iyo wax oofinta iyo ammaanada. waxay kaloo shareeca islaamka ka hadlaysaa mucaamalaadka sida wax loo kala gato iyo beeca. mucaamalaadka madani waxa la yidhaha beeca iyo shiraha iyo sida maaragtay businesska loo sameeyo. islaamku wuxuu leeyahy nidaam kaamilah uu leeyahay buuxo. wuxuu ka hadlaa islaamka xiriirka qoyska, qawaacidda islaamka uu leeyahay xiriirka qoyska. ninkii naagta see u dhaqmayaan, haweentu waa inay rumaysan tahay waxa ilaahay amray inuu fuliyo. ninka ku adeeci mayso, waxay ku adeecaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. berri ilaahay baa ka abaalmarinayo, ilaah bay la xisaabta, ilaahay baa siinaya jazaheeda subxaanahu wa tacaala. ninkana waa sidaasoo kale, halka in laga indilaaqa waayo. ma aha nin waay iska dhici nin iska dhici hebel maaragtay challenge karee
yuusan maaragtay naa ninka maxaa isugu jilcinaa kirdhid miyaa lagu siinaa ninka maxaad isugu waxaynaysaa laa qofta mu'minadda ah haddaa i khilaafto ilaahay sharcigiisa xaqa uu kaa saaray ninkaada haddaa khilaafta ilaahay baa kugula xisaabtama subxaana wa tacaala masalada aan ku kala duwanahay masaladaas waa masale asaasiya waay ninkana xuquuqda lagu leeyahay ilaahay baa weydiinaya subxaana wa tacaala maalinta qiyaama kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi الرجل في راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مركا إسلام كاسو كل دوية هي مسألة يعني صراع الدمر كأيو وردها وين كأيو جنجان كان أفكارها مدحين كبوحه أو فتن كأه وحيالها قولي دومينها هي كم التعي وحا إن شاء الله أوجد بياه dadku waa ku marka islaamku wuxuu habeynaa oo kaleento cuqubaadka jinaa'iga wixii dhaco qisaas iyo xad iyo maaragtay xuduudda ilaahay buu ka hadlaa islaamka waa qaybta la yidhaahdo penaltiga wuxuu kaloo islaamka ka hadlaa calaaqaadka dawliga ah oo heshiisyada la dhigto iyo itifaaqaadka ayuu ka hadlaa marka islaamku waa manhaj kaamil ah waay manhaj kaamil ah waay qofka markuu yidhaahdo ilaahay baan rumeeyey waxaasoo dhan buu rumeeyey marka qofka haddii dadku waa kala duunaan karaan xagga allah ka cabsi ku kala duunaan karaan oo dadku yani ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih waminhum muqtasidu waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah ayaa alla yidhi subxaana wa tacaala dadku waa kala duunaan karaan allah ka cabsi ku kala duunaan karaan qofaa iska gaabinaya qofha dhexdhexaada qofkaas saabiq bilkhayraat ah laakiin yani waxa waye muslimiinta in la gaalaysiiyo lama ogola macsiye in lagu gaalaysiiyana lama ogola qofkii hadduu muumin yahay waa la caasiyey yani khamri buu cabay sidiisa kale waa roon yahay ilaahay ma inkiri subxaana wa tacaala diintiisii masalan waxbaa ka dhacay dembiye dembi laguma gaalaysiiyo qofka waa caqiidatu ahlu sunna waljamaaca nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man shahida an laa ilaaha ila allah واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم qofkii ilaahay qira axad kaloo xaq lagu caabudo inuusan ilaahay ma ahe qiblada iyadana u tukada salaadeedana tukada waxaan gowracnana cuna qofkaas waa qof muslim ah wuxuu leeyahay muslimiinta waxay leeyihiin waxaana dushiisa muslimiinta waxa dushooda nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka digay xadiiskaas imaam bukhaari aa wariyey marka waxaa kaloo nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in qofka ereygan gaalnimo ah lagu tuuro qofka si sahal ah wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiiska imaam muslim uu wariyey cabdullahi bni cumar laga wariyey idaa kafara arajulu akhaahu faqad ba'a biha axaduhuma qofka walaalkiis ama walaashiis hadduu gaalaysiiyo yacni labadooda mid baa la noqday gaalnimadii ama asagaa gaal ahoo run ah waa ninkuu ku tuuray gaalnimada ama asagay ku soo noqonaysaa nafahantiisa oo marka yani waxa waasaa dembi galay qofka muslimka markaa waxaa la rabaa inuu wax cad inuu diinta oga baxo oo lagu hayo oo gaalnimadii qalbigiisa ku sharxo kuna dego saasoo kale marka ilaah siduu yidhi walaakin man sharaxa bilkufri sadra arrintaas ma aha micnaheeda inaysan jirin xad u dhexaysa gaalnimada iyo islaamnimada masale dhib badanaa jirta hadda dadka waxa waaye ninkii wax kastuu isaga hadlayaa gaalba ma noqon karaba wax kasta oo kufri ku hadlaya marka waxaa leeyahay maadaama uu soomaali yahay gaalba ma noqon karo annaga gaar ahaan soomaliya saa ictiqaadsanaya qaarkood maadaama soomaali uu yahay inuu hebel yahay gaalba ma noqon karo marka ma jirto yani wax u kala dhexeeyo gaalnimadii iyo islaamnimadii ma jira xad ma jiro taa ma aha micnaheeda dadka in aan la gaalaysiinin taal wal ma jeedo inaysan xad gaalnimadii islaam u dhexaysan jirin yani waxa waa xad baa jiro xariiq cadaa jiro u dhexeeyo gaalnimada iyo islaamnimada u dhexeeyo waxaa jira arrintaas waxaa ku soo gabaday dad badan oo islaamka duminayo dad badan oo islaamka duminaha waxay ku soo dadkaa gaalaysiinaysaan adinka dad badan oo islaamka la dagaalamaya waxay soo dhex galeen culamada islaamka waxay dhihi jireen zanaadiqay dhihi jireen dadka noocaasa waa qof uurkana gaal ka ah korkana islaamka ah dad badan oo zanaadiqa aha soo galay arrinka hooskaa soo galay oo ka faa'iidaysay arrinkaas laakiin arrintu sidaa ma aha marka يعني waxa ugu horeeya shirkiga ilaahay subxaanaه watacaala ilahay haddaa u shariig yeesho ilaahay subxaanaه watacaala waa diintiisa waa ka baxaysa waa ridoobaysaa faman ashraka biاllaahi ilaah qofkii u shariig yeel wax laga hadlo waxa ugu weyn qur-aanka ugu cad towxiidka waa la caddeeyey qur-aanka intiisa badan wuxuu ka hadlaa towxiid 82 suuradood qur-aanka waxay ku soo degeen maka waxaa laga hadlaya inta badan caqiido basaa laga hadlaya ilaahay subxaanaه watacaala iyo gaalnimadu maxay tahay shirkigu muxuu yahay towxiidka muxuu yahay laga hadlaya marka qofkii ilaahay u shariig yeelo
tawxiidka inta quraanku uu ka hadlayo ee ilaahay u shariig yeelo subxaanahu wa tacaala masalan wuxuu baryay dadkii awliyada ahaa ayuu baryay iyo dadkii saalixiinta ahaa ama qubuur wax u gowracay tacdiiman lahum ama waa u nadray ama wuxuu gargaar ka dalbaday ilaahay keyrkiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu aaminsan yahay ilaahay keyrkiisa inuu u gargaari karo oo markuu xaaladiisa ay xumaato khatar uu ku jiro yani ilaahay keyrkiisu istiqaasa sameeyey iyo dadka mowtada in kaalmo laga dalbado iyo madad sida dadka qubuuraha caabuda ay sameeyaan oo kaleento qofka noocaasa sameey istiqaasada sameey diinta waa ka baxaya waxa alla yiri maxaa u daliila ilaah wuxuu yiri subxaanahu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ilaahay waa u dhaafa dadka ilaahay ma dhaafa inuu qof ilaahay u shariig yeelo laakiin dembiyada ka dhan waa loo dhaafi karaa qofka ilaah wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali dacوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله أيضا أفير صدا مشركين قال هذا وحل ليه مركي بدا جوغان أي كل موجودها كوكعان أو خطر أي قلان إلهي كل جيسي بريايا عيد كلو نوى إلوبايا وحي عابدا نوى إلوبايا إلهي كل جيسي بريايا عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر markay banaanka alla u soo badbaadiyay idaahum yushrikuun ilaah bay u shariig yeelayaan maxaa u malaynaysaa qof marka uu xaaladaas ku jiro badda waa gaaladii sifada lagu tilmaamay nabiga la dagaalamaysa calayhi salaatu wasalaam oo kufaarta ah mushrikiinta quraysh ah maxaa u malaynaysaa qofka markuu xaalad xun ku jiro ilaahay keyrkiisa baryaayo markay baddiisi la noqoto markay diyaaradii la noqoto markuu baabuur la gad xaalad xun noqoto ninka baryaa awowgiis ama sheekh hebel oo baryaayo ama abka hebel oo baryaayo qofkaas maxay kula tahay caqiidadiisa qofka uu baryaayo wuxuu aaminsan yahay booska ilaah istiqaasa leeyahay taa baryo ma ah istiqaasa leeyahay هذه الاستغاثة yaan lagu mugdi lagu gelinin waa gaalnimo waa diinta waa ka baxaysa naagaha umulisayaasha qaar waxay yiraahdeen la yiri markay haweenta foosho ku cuslaato bayna alxayaati wal mawt ay tahay waxay leeyihiin abay faadima qabso waxa tiraahdaa abay faadimo oyde abay faadimo oyde qofti waxay joogtaa bayna alxayaati wal mawt aakhiri u socota markaas ay leedahay qaysha abay faadimo u qaylso ayadoo abay faadimo ilaha nafta ka dhacaysa وهي مستغيثة بغير الله مشركة أيضا لمن يسقفك قال لهم كل ما والعياذ بالله هذه خطورة وين خطر مركا شركة قرآن واعد يا لغوه ساس واحد شركة إنها تقانا للربا شركها أكثر إن إسكدا وحيد الله سبحانه وتعالى توحيدك يعني كاخل دم أنت لو قلنا كوان قل هذا هبل ويرس وقل هبل قل هذا حسا كدم بيدك واحد بدنا تشويش لو قليا وقال هبلا كدم بيسو وهابيه واي حاجه كلمه وحاصل dadka lagu afuufay marka qofka waxa la rabaa in tawxiidka la garan mariyo bas marka khali baalak islaal akhl kareem oo ukhtal kareema waxyaalaha sheekh al-islam tiimi wuxuu yiri man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'a wuxuu leeyahay sheekh al-islam tiimi ninkii ilaahay iyo asaga dhaxdiisa wax dhax dhigta oo uu baryayo waxa ilaahay asaga u dhaxeeyo oo uu weydiisanayo oo uu ku kalsoon yahay oo tala saaranayo wuxuu yiri kafara ijmaacan wuxuu ku gaaloobay si culimada ay ku ijmaacsan tahay waxa kamid ah waxa lagu gaaloobo qofka malaa'igta haduu diido haduu inkiro malaa'ig ma jirto haduu yiraahdo waa gaaloobaya qofka soo bixinta qiyaamaha haduu inkiro yani waa gaaloobaya qofka لأنه كتابك iyo sunnadii ijmaaci dhanbu lugta ku dhuftay sidaas oo kale qofkii ilaahay caaya subhanahu wa ta'ala ama nabiyaasha kamida caaya faqad kafar waa gaaloobay qofka muxuu ilaahay u caayna subhanahu wa ta'ala لأنه لا يبالي danka ma galay Allah subhanahu wax weyn yaagtiisa ugu fadhiyo ma jirto marka see loo dhaha qofka muslim waay muslim ma aha qofka yani faqad kafar waxa kamida qofka gaaloobay ninkii nabinimo sheegto oo amar rumeeya nin nabinimo sheegtay nabiga gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam qofkaasna waa gaaloobay lianna wuxuu beeniyey aayadda ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waxaa ka mid ah qofkii diida zinada inay xaaraan tahay masaladan u fiirsada qofkii yidhahda zinada xaaraan ma aha waa xalaal ninkii yidhaahdaa shalay waxaa maqlayna su-aal la weydiinaya gabarta maxay boyfriend u samaysan wayse wiilka muxuu boyfriend u samaysan waaye boyfriend muxuu yahay
boyfriend gabartii bikrada ahayd oo reerku dhaleen uu raba intuu dhamaysto eber ka dhiga kulligeed oo dhan eber ka dhiga intaasoo sana haysto markay duluf noqoto le ma cajab gelin ma salaama wallaahi nolosheenna isma anfacayso xoogaa dabeecadahadan ka helin waa dhammaystay ay mabda hada waxaasana la qurxan hadda annaga ilaahay idinku dhaarshay bal ka warrama gabar bikra ah oo reer dhaleen oo reer korsanaya oo ninkii inta asoon bilaa caqdin wa bilaa ziwaajin asoo xarig ilaahay ku xiranin oo guri aan loo geynin iska haysto markuu dhammaysto kadib oo bikaaradeedii burburiyo oo gabarnimadeedii baabi'iyo oo ay dhammaato duluf noqoto ayadoo dhan kulligeed yidhaahdo maya ima cajabinin mid kale haddana uu raadsan sidii oo kale u silciya haddana fahamka yaalla gahlada waa saas waaye waa arrin fool xun oo baadil ah waaye oo xataa caqliga aan socodsiinayn oo gabartan goorma gabarnimadeedii ay ku faanaysaa والمحصنات من المؤمنات كوا دور سنة مؤمنات كمدة ومريم امرأة عمران التي أحسنت فرجها قفت وحا يكوفان مؤمنات وحا شرف بدن عفادة دور سنان تيدا أو دور سنان تيدا هذا يقول قشانا إسلام قولي اللو قرينا يا والله على لا سايا قولي اللي يقانو إنه بلا لقينا يا هذا عرور رشو أو يا أبتي يا هبرير يا إيدا لو يهي haddii ay hooyan ayeeyo noqoto caruur ay taqaano oo guri xalaal ah ku soo dhashay ayay waxay u tahay ayeeyo ayadoo kariimad ah oo wiilka ayeeyo waxay ixtiraamay dhunkan madaxa ka dhunkanay gabarta ayeeyo waxay madaxa ka dhunkanayso wiilkii ay gabarteeda qabay madaxa ka dhunkanay oo qof muxtaram ah ayay nolosha ku dhamaysanaysaa maxay tahay boyfriend iyo gabar iyo wiil misdhex gali kara maxay tahay waxa انحراف بعيني بن ادم وهم صخمي امريكان قالوا waxay isaga bedelaan gabarta sida shaatiga isaga bedelaan kale isaga bedelaan oo wuxuu ku falaya wuxuu u guursanayay shahwadan iyo waxay ahayd ilmo ma barabe waxa raba in laga xiro shahwada la maya gabartan taaban maysid you will not touch this girl arki maysid fiirin maysid hatta lagu ma ogola soo xariga ilaahay ima magaca ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu yimaado magaca ilaahay loogu xalaaleeyo la isugu yimaado ma lagu ogyahay wixii ka yimaado mas'uul adaa mas'uulka ah adaa lagu weydiinaya masruufkeeda laga raba marashadeeda laga raba gurigeeda laga raba caruurteeda dhashan aday kugu abtirsanayaan adaa mas'uulka ah maca salaam waa dhamaatay ama ina inta wax ka cunto sidii bahalkii oo kale guriga u dhac gabartan tan baabi canugaysiida wax dhalay lama yaqaan mujtamaca mareykanka qofka aabihiis kaliya yaqaana iyo awowgiis kuma dari karo annaga intiina haddaad abtirsataanna nin walba wuxuu gaarsiinaa awowyaashiis wuxuu gaarsiinaa 50 iyo 100 uu gaarsiinaya hebel yaa noo xifdiya idinla tahay ilaahay idinku dhaarshay yaa noo xifdiya awowyaashe yaa noo xifdiyey nasabkeenni yaa noo ilaaliyey inaan abtirsan karno oo aan leenahay asal iyo farac aan leenahay diinta islaamka waxaa rabtaa marka xoolo dadkii la isugu day oo ka tagto يعني هو يدي ولا جورسدي شرعي على جورسة يدي شرعي على جورسة تيكورش ساسا نسب كنا أنو حفظ السنة لكن وحرب تذكر حوالي النقطة اسكسي الحديثة مركو قفك الزنا ده وحلال يراهدو أما بوي فريند النقطة حلال ويراه قالوا بايا الزنا ده إنك حلال شذا يراهدو واحد إسلامك واحد حري ثاني واحد إسكنافة محيتها واحد أشياء ثاني إمارتي لو بدي قفوا إسرافت هاي إمارتي قفك السيرة وكفر إجماعا وقالوا بدينته وكبحيا وحكم إذا شيء محرمات كلمد وعلمد إيجانا شيء معلوم من الدين بضرورة ودين تلوية كان هذو قفك إنكرنا وكو قالوا بيا سيد ضوافارك إيا خمرك إيو مارتي شيء مجمع عليه لوية علماء كو إجماع سنة هذو كو قالوا وقالوا بيا هدود ديدو حران مديسة ما حيا لقفك ما برهم يسا دينتي إسلامك مركا يعني waxyaalahaas ay kamid tahay waxa kamid qofka haduu diido taacada ilaahay wax kamid ah inay waajib ku tahay haduu diido salaadii haduu diido soonka haduu diido waajibigu ma aha idhaaf haduu ku yiraahdo mana soomay mana rabo soon iyo jinniga waxa sheegaysa gaajada isku dilna meesha haduu yiraahdo oo saa u istihzaa kafar qofka diinta waa ka baxay waxa kamid ah cibaadaadka ku soo arooray xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ay gaar ahaan بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام حديث كاس أركان الإسلام خمس شنطة قفك إنكر خاصة قفك وقالوا بيا قفك دين تكو استهزاء وصو شيخني شيخ الإسلام ابن تيمية وحليه ومعلوم بالإضرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. يا شيخ وحليه شيخ الإسلام ابن تيمية وحا دين تلقوا أوجهي qofkii banaysta inuu diin kala raaco manhaj kale inuu raaco oo aan ahayn shareecada islaamka diinta islaamka aan ahayn oo yiraahdo shareecadaas aan raaca anigu ma raacayo tan waxay noqonaysaa marka qofka waa kaafir buu yiri wuxuu la mid yahay qofka diinta kitaabka qaarna rumeeyay qaarna inkiray oo diiday yani marka yani qofka waa gaalooba waa diinta waa ka baxaya waxa kamid ah qofkii ku jeesjeesa إلهي وعدكيسة جنة لغا شيكي حور العين تجوكتا لغا شيكي وحا لغا شيكي جيدها كويا للجنة قريها الجنة كويا الله كشيكي صريرها إلهي كشيكي سبحانه وتعالى وحا إلهي كشيكي نار عقارني قبان يلبسون ثيابا خضرا من سندس حرير تجل إحسانا أيو الله كشيكي سبحانه وتعالى جنة وعدك إلهي وبلن قال سبحانه وتعالى هدو قفك إنكرو يراه الجنة وحاس وخرافات دادك الغور يرينا سيدي الشيوعيين تيراهدين الدين وفيون الشعب يراهدين diinta waa daroogada dadka lagu daroogeynaya janna ma jirto wax liiray naar ma jirto wax liiray yaani ka waxay noqonaysaa kufri marka qofka jannadii haduu sarumaysneen sidoo kale naartii waciidka ilaahay haduu ku kufri naartii haduu sarumaysneen waa gaalooba isaga naarta ilaahay ka sheekay jahannama alla ka sheekay subhanahu wa ta'ala yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka sheekay gaalada marka naartii hadada inkirto naar wax liiray ma jirto ama ku jeesay inuu waxay noqonaysaa kufri saxaabada nabiga kaleey salaatu wassalaam qofkii waxa ka la mid ah qofkii ka shakiya gaalada inay gaalo yihiin ama kaalmadooda ka shakiya ama madaahibtooda saxiix ka dhiga oo yiraahdo waa sax wadadaas kaliya in la raaco ayaa sax ah ninkii yiraahdo dimuqraadiya in la raaco kaliya sax ah yani waxa sax in la raaco yani shuuciya in la raaco sax ah waxa ka dhan waa khalad ninkii saa yiraahdo oo manaahijtooda sax u arka ama ka shakiya gaalada gaalo inay yihiin suufiye qaarkood aan shaam ku arkay waxay rumaysan yihiin kiristaanka inay jannada galayaan qaar waxay rumaysan nabigu bay diidan yihiin kaliya waxa ma qabaan oo tawxiid mushrikiin waa ilaahay bay waxay leeyihiin ilaahay bay wiil u sheegayaan subxaanahu wa tacaala تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إركي يدولك وحكو سكتين إن الدلاعان كله يهون الله سبحانه وتعالى إن الدلاعان محيل الدلاعيان أن دعوا للرحمن ولدا إلهي الرحمن عز وجل إن أي أشياء ولد إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبير inaad tiraahdo marka waa sax iyaga saxa nasaarada saxa dadka aqoon u saatahay ninka diin lahayna waa ka sii fog yahay an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxa arada samada joogo dhan waa adoomada Allah subhanahu wa ta'ala marka inaad tiraahdo nasaaradii sax waay wallahi ayaga ka naxariis badan muslimiinta ayaga ka fiican inxiraafkii qalooc ayaa noo keenay ayaga noo keenay Soomaa iskoolaadka wixii naga saaray oo aan inxiraafka nageliyay oo diinteena naga fogay ayaga waay diinteena markaan ka fogaanay oo ayagii aan raacnay ayay waxay sameeyeen ay noo yimaadeen oo aan noqon dad munxarifiin oo ilaahay diintiisa ka qaloocan markaas haddana waxay naga keeneen inaan idhaahno gaalada ka fiican muslimiinta maxaa yeelay waa muslimku waa ku dilaya waa ku dhacaya waa ku bilaqaysanaya gabartu kaa kufsanaya islaamka miyaa kufsi iyo bilaqaysi ah islaamka miyaa ah dhac iyo boob ah islaamka miyaa islaamka soo kan maaha ilaaliyo muxaramaadka shanta ilaaliyo oo qofka u ilaaliyo nasabkiisii iyo maalkiisii iyo naftiisii u ilaaliya iyo cirdigiisii
soo kan islaamku ma aha ilaahay yiri subxaanahu wa tacaala dadka wixii qofkii waladiina يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إسلامكم صوماء يجي قبر زانية تاي أفك كي هذا مرخاتي كان لليها أفر قف أركيس كان مكين 100 ولا كرباشة فاجلدوهم 80 جلدة كو ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لبا وأولئك هم الفاسقون سد عسل السود مرخاتي لقى أقبل ما يدنبئ مرخاتي ما قالوا فاسق نواي وانا لكرباشة بقول وحلقوا فرنسا ديتهن جادل اسلامك ساس وما اسلامك نك والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما نك حولاد ربع دينار علماء دينار ربع دينار قفك حظو قعنتها لقى قوي كوها لقى سي قعنت الله قوي توك صومها اسلامك كا قورما اسلامك باللقي داعي زنا نقص فسادك نو كان صومها انحرافك نو كان صومها صدن سنة 40 سنة كنت سنة انحراف نقود الشيوعية نو تمد اسلامك نجا انحراف سي waxaa loo diiday gabdhihii inay xijaabtaan meesha inay fadhiyaan laga yaabo gabdho iskoolka dhigan jirayo ee ku khasabtay traffic inay xirtaan loo diiday wadanka islaamka ayagoo joog inay xijaabtaan sarwaal iyo shaati inta loo gali yiraahdo ku imaam iskoolka gabartaan dib ay ku noqotay inaysan oo loo bixiyo traffic maraacad intay gacmaha gashato billahi calaykum marka islaamku ma aha saas nasaarada qofka ka shakiyo inay gaalo yihiin waa gaaloobaya diinta islaamka waa ka baxaya li'annahu shakka إلهي هذا الكيسيو وكشكي عز وجل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قفك عاية أما قف كمدة ومركا عايدي سأل الصعوته مثلا إنه قاركود وينيو سيدة علي بن أبي طالب وكله قاركود إنه والله صعوته مركا قاركود أي وينينا سيدة الشيعة وكله قاركود ولاة الشيعة علي إليهم وإلهي إليهن جبريل با خلدي ومارتي فلا شك في كفره يعني قال لمديسة أصنع الشك كمجرى قف كاسوكله قوانين توضعها ننكي حكمية إلهي حكم كيس حكمها ننكي حكمية وقالوا بيا سجنا شريعة الإسلام كبوس كذي أصور كاي مركا إني قانون كان وضعها كخير بدنيها شريعة الإسلام كا وحكم ذا marka xukunka wama lam yahkum anzala falaakum alkafirun qofkii haduu aaminsan yahay xukunka ilaahay subhanahu wa ta'ala xukran inuu ka khayr badan yahay si islaamku noqonaya وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بس وأولئك هم المؤمنون الله سبحانه وتعالى هذه لو ير إلهي حكم كيس وحليهم إذا هم معرضون وجس جسنايا أفي قلوبهم مرض قلبهم يكبكان أم ارتابوا مسوا شكيا حكمك إلهي إنه حقيا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسول مسوا كبقيان الله الرسول كيس إنه كإحضان أو حكم جور أي حكميان الله الرسول كيس بل أولئك هم الظالمون الله ما يسكنافوا حسب ظالمين كوك إنما كان قول المؤمنين هذا الكود أفر وحوى أو كلية إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأطعنا وانا مقلنا الله سبحانه وتعالى مرك قفك حكم شريعة الإسلام حكم أنهين قاتي وحقوقنا حسية سؤال كستول لو يدي كجواب هدل لماذا علماء وحي كفر دون كفر وحي كتل الأمان إنه قفك قال لها أو مسألة حكمية عن حكمك إلهي إهين قفك ساسو كلنتا qofka saas oo kale inta qaaliga waxa ma gaalooba mise ma gaaloobayo waxa la ma gaaloobayo gaalnimo waa gaalooba la gaalnimo aan diinta ka bixinaynin waa kufrun doona kufrin qofkii mas'ala shahwa u geyso ama rish wala alush iska qaato laakiin ina ka tagto manhajka ilaahay oo dhan kitaabka xagga iska dhigto oo aad kitaabka la soo qaadato oo aad tiraahdo ma baraba xagga iga dhig kulligiis oo dhan kufri waa ka limaada xagga u dhigaysaa su'aasha hadii lagu weydiiyo limaada xagga u dhigaysaa جواب كستو آد بحس قال لي كينيسا ما هذا مناسب معه وقال لي ما يا وقلف سيهي
oo waxaan kala ka naxariis badan gaalnimo keenaysaa أي جواب آد بحسو دنع كستا u dhaqaaji adigu bal ii keena 1000 jawaab ii keena waxay noqonaysaa waxay burinaysaa aqoonta islaamka iyo tawxiidka ayay ka hor imaanaysaa marka yaani taasna waa waxay kamid tahay waxyaalaha keenayo kufriga culimada islaamka waxay kamid asbaabaha kamid qofka inuu shariicada islaamka yiraahdo waxaan ahayn ba ilaahay igeynayo oo ilaahay baan ugu dhawaana waxa shariicada islaamka ah in qofka haduu yiraahdo sida suufiyada qaarkood oo kale waxay yiraahdeen shariicada daahir iyo baadin waa anaga baadin kan haysanaa waxaan kale aad haysataan ba ma haysanaa anaga ma warabno mid hoos adinka aad u jeedin ayaad haysaa markaas waxa ka soo baxay wax fara badan ka soo baxay nin leh kama kan ku tukada nin leh maaratay khamriga iska cabaayo oo leh maaratay aniga waa xalaal yaani nin leh waajibaadku waa laga koryeelay iyo faraa'idii qofka noocaas saas oo kale banaysta kaafir noqona diinta waa ka baxaya saas oo kale qofkii ridooba see la yeelaya culimadu waxay yiraahdeen waa la toobo weydiina waxa la soo noqo ka soo noqo waxa kan marka haduu diido saddex bari baa loo sugayaa haduu diido waa la dilaa baa la yiri hadalkaas waxa laga qaatay Umar ibn Khattab hadalkii uu yiri markii loo sheegay nin gaaloobay markuu islaamay kadib oo la dilay yaani fahalla habastumuhu thalathan saddex bari maxaad u xabisi weyseen faadcamtumuhu kulla yawmin raghifa maalin walba maad muufasiisaan وإذا ستبتموه هذا كتب أقبلت ويدين لهيدين لعله يتوب أو يراجع وحدع كرته واستتبتموه ما كتب ويديسان لعله يتوب وحدع كرته مركا إنه توبة كينه أما أمرك إلهي وصنه سبحانه وتعالى مركا عمر وحير اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني إله ما شاء مجوجين بيري رالنا كما هي نكاس يعني هلا لقد لي مدح لقى قوي مركا لكن وإن لو سجى قفك شبهة كل الله تهدي صورة كرتا الشبهة هذا لقى نقاشه هل اسكت ضي إن لصوم مارت عليه هذا مركا كنو كسر نقوم وايو مدح لقى قوي إمام مالك هذا الكاسورية في الموطأ يكوري نك مرتد كمحل لو دلا محل لو دلا يا وقف متلاعبة دي كل ما وش كل عيال ذكر وافس هذين يا marka saas loo dilo waa cudur cancer way marka umada waa laga fogeynaya marka ayuha alikhwa zanaadiqada culimada qaarkood waxay yiraahdeen zanaadiqada nimanka see la yeelaya zanaadiq waxa qofkii gaalnimo qarsanayo islaamkana muujisanayo zanaadiq nimankaas la yiraahdo zanaadiqada see la yeelaya hadii ay gaaloobaan ma la aqbala toobadiisa لأنك هدورة وتوبة كان حتى وحي قال لما دي هوسو كوتا مركا علماء وحي يرادين والدلا مدح لا يقول لا أقبل ما توبة دي ساس يرادين لأنه ما دام زنديق ويهي قال نوحي يرادين علماء إنه توبة كان عدي عكرتها ولا أقبل توبة دي أهل العلم غير كنا ساس يرادين رحمهم الله وحفظهم الله مالك مسلم مرتدك وحنقنا في أماش مسلمين تلو قد لايا لما دحلايو دحل ما قلايو قفك مرتدك ساسو كله سو النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قف مسلم أنا قال ما دحله قف قال أنا مسلم ما دحوه مركز زنادقة وأنا ما كان فرح بدن أو هيسوق جرا واحد فرح بدن حلولية إن من كله يراهده أو اتحاد كرميسن يعني حواي حلول الاتحاد وحلول جدا ضد وحي الرميسيهن إلهي خالق مخلوق وأسكن حجرا وامد أساسي آمن سيهن marka nimanka saas aaminsan waxa la xuluuliyay itixaadiya la yiraahdaa waxay leeyihiin waa fana ilaahay iyo khalqigiisa isdhax galeen bay leeyihiin waxay madaahirta aan u jeedno dhan waxa waa ilaaha waxay leeyihiin waa ilaahay muuqaaladiisii waay ma aha wax kale marka kuwaas oo kale waa gaala iyagana waa zanadiqa la yiraahdaa waa madaxa laga jira iyagana waxa kaloo ay culimadu ku dareen dadka qaata madhabka shuuciga ama qaato maartay bacthiga waxyaalahaas oo dhan waxay soo galayaan dadka munxarifiinta ah ayuha alikhwatu alkiram nasal allah tabaaraka wa tacaala an yuthabbitana ويهدينا إلى الصراط المستقيم ويحيينا على الحق ويميتنا على الحق إلهي waxaan weydiisanaa subxaana watacaala inuusanna baadiyeyninta ilaahay baa wax baadiyey subxaana watacaala ilaahay baana wax hanuuniye caza wajal ilaahay si waxaan ka baryaynaa caza wajal inuuna xifdiyo adduunka intaan joogno oo iimaanka ilaahay nagu xifdiyo subxaana watacaala inuu naga dhigo kuwa xaqa ku dhegan kuna dhinta ilaahna ku soo saaro subxaana watacaala bifadlihi wa raxmatihi tabarna ma lihin annaga xoog iyo xeeladna ma haysano
ilaahay subxaana wa tacaala qalbigeenna iimaanka ha ku hanuuniyo waana mahadsantii waa idinku dheereeya hadalka iga raalli ahaada جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا الفاضل محاضرته الغيمة ولا ليال وقتنا وانا سوكوبي أدبان وقمها علنا الشيخ محاضرة سونو جدي وقتي انت كلمن سؤالها أيان توسق علينا إن شاء الله سؤال شكوب هذا يا شيخ وحيد هاي ولا الواسدات شيكتي قفكي كوتشس جيسا الله قرآنك نبيك صلوات الله وسلامه عليه iyo inuu diinta ka baxayo qofkaas miya sida dad badan oo qaar nala tukada kugu caayayaan jilbaabka garka qabiiska gaaban iyo wixii la mid ah waxaase ka sii daran buu leeyahay qofka su'aashan soo qoray nin aan ka danqanaynba dadka muslimiinta iyo waliba saaxiibadiisa mararka qaarkood waxyaalaha dhaqanka noocaas oo kala sameynaya marka saaxiibkaas iyo qofka sida u hadlaya ama u dhaqmaya xukunkiisu muxuu noqonayaa بسم الله الرحمن الرحيم قفك dad badan waxaa jira shariicada islaamka shay kufri ah marka cumuumkiisa loo hadlayo marka hoos marka loo soo dego oo qofka la rabo xukmintiisa inuu gaal yahay waxaa la yidhaahdaa waa in la helaa intifaau lmawaanic يعني وارتفاع الشبهات شبهات كان إن ماشى لقى قاضي وحيلا موانعنا وإن يسنجرين وقفك أدي دايو وحلقة بأنه جهلي هايو مركا هوري لوغو حكمين ما إنه قالي هاي قفك سوكل والله عدينا وحلي وحنا كوهل ليسو كفري كينيسا مركا الله إيضاحي الله عدي كدب هدو كسي السعودو وسيديس يكون دقيها وقالوا بأي قفك دين توقف بحايا مركا وإن شبهات لقى قاضي قفك dad badan oo saas salaamada ninkii tukanaya waxa laga yaabaa inuu kufri isaga hadlaa laga yaabaa waxyaala kufri inuu ku hadlaa uusan u haysan waxaan inay gaalimo yihiinba marka ha loo sheego ha loo sharxo ha loo iidaaxiyo sida ninka jilbaabka ku jees oo kale jilbaabka maxaad ugu jeesaysaa ilaahay sharcigiisa waa aayad ilaahay waa يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إله ساسور سبحانه وتعالى مركا يعني هلا صار الشبه هذا ضد بدن واحد جرو أو واحد أفهم سي إنه قاليه إنه قال لما تعرف فهم سي مركا جهلك هلا صاروا هلون نصيحة هذا كوسي استمرار وكوسي أتكيستو وكم هذا حدا جهي مركا وكبح يا دينتي كافر بنقنايا وبكبح جزاكم الله خير سؤال شلبات بواحد هاي قفكي آمن سن fikraddaha iyo mabaadi'da gaalada in lagu horumarayo isla markaana ay tahay in iyaga la qaato dhinac walba xukunkiisu qofkaas muxuu noqonayaa waa soo sheegnay waxaan nidhi waa kufri wixii aan qofka hadduu aaminsan mabaadi'da gaalada inay tahay waxa keliya lagu horumarayo waa gaalnimay keenaysaa taa oo uu ku qanacsan yahay oo qalbigiisu cabsan yahay maanta dhan baan ka soo hadlaynay uu cabsan yahay waxaan maahay wax kale aan lagu horumaraynin mabaadi'da gaalada ay sheegayaan waa fikrado waay qofaa keenay kuwa ka fiicana haddii xataa fikrad la keenayo maba dhihi karti waxaana ka khayr wax walba ugu fiican kuwa ka fiicana beri la keeni karaa marka fikrada adigu maxaa ku cabsiiyey see u dhahaysaas ilaahay diintiisii ayay ka fiican tahay marka qofka noocaas oo kaleenta ah waa nooca yacni qofka shubhada gashay oo cabbay gaalada waxoodii marka gaalada wixii faa'iida waa laga qaadanayaa technology-ga iyo waxyaalaha cilmiga science-ka la yidhaahdo chemistry-ga physics-ka biology-ga dhakhtarnimada caafimaadka waxaas waa laga qaadanaa muslimiinta ayaga cilmigan base u ahaa oo soo horumariyey oo qawaacid u sameeyey oo dhisay oo orobod geedahii saarsaarnaya markii islaamku uu jaamacadaha dhisay oo dhakhtarnimada ka gaaray heer marka iskuma xirna gaalnimada iyo iskuma xirna horumarka technology-ga waa in basharka o dhan bay u furan tahay ninka shuuciga ah iyo ninka Chinese-ka iyo ninka Maraykanka ah intaba dhakhtarnimada waa isaga mid waa wax sunan ilaahay arladan ku sameeyey waa subxaanahu wa tacaala waa isaga mid marka la yidhaha technology-ga baabuurta waa iskaga mid waa shay xaqiiqa oo adduunka yaalla waa taa macnaheeda waa fiican tahay hadduu yidhaahdo qofka yacni taas ku gaaloobi maayo
oo technology-ga waa shay wanaagsan waa la qaadanayaa laakiin hadduu yidhaahdo gaalada bixadaafiiriha waxay wadato dhan baa sax ah technology-ga iyo falsafada daba socota ila gaalada hadda waxay leeyihiin cabba waa isku qaata qashinkeena iyo waxayna isku qaata ma noqon kartid engineer haddaadan ahayn mulxid haddaadan ahayn oo aadan aaminsanayn diin la'aan takhtar ma noqon kartid haddaadan ahayn nin faasid oo caqaa'id marka falsafada aad rumaysan tahay iyo cilmiga waa kala duwan yihiin muslimiinta cilmiga qaateen waana horumariyeen ayagaana qawaacid u sameeyey qashinkana waa iska daayeen falsafo iyo caqiide iyo xasbana waa iska tuureen ma qaadan maanta waxay leeyihiin isku qaata qashinkeedii iyo technology-geeda no anaga waxaan ma qaadanayno inay gabarta qaawnaato oo dabagaab gashato iyo science iskuma xirna iyo cilmiga dhakhtarnimo iskuma xirna gabartu dhakhtar waa noqon kartaa haddii ay islaamka iltizaamkiisa u suurtoobayso iyadoo dhakhtarada haddana waxay noqon kartaa xijaabkeeda iyadoo haysato oo shariica islaamka meel oga leexanin haddii heli karto waa noqon kartaa dhib male ninku injineer waa noqon karaa maxaa isku xiray ninka injineerka iyo gaalnimo maxaa isku xiray dhakhtar iyo gaalnimo nin dhakhtara ku imaana wuxuu ku leeyahay may mabaadi' kaloo falsafaha uu wataa besides dhakhtarnimadiisii laa qashinkan xagga dhig waxaan rabaa dhakhtar muslima in la helo waxaan rabaa injineer muslima in la helo waxaan rabnaa in la helo nin technician oo muslim ah iskuma xirna gaalnimada iyo technology-ga marka waa inuu filter leeyahay qofka filter ka reebaya qashinka ka reebaya inuu leeyahay qofka filterkana waa caqiidada iyo diinta islaamka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka ahlu cilmiga ah oo laga agdhawaado bilahi tawfiiq su-aalahay soo dhowdhow oo dhowr ayaan isku jamcinaya waxayna yihiin sida tan wuxuu leeyahay walaalka soo qoray waan jeclahay diintayda laakiin shaki badan ayaa igu soo dhaca oo waxa uu dareensan yahay inuu ka jiraday quluubta waxaan ka jiraday buu leeyahay quluubta shakigaasi oo mararka qaarkood igu kallifo waxyaala aanan jeclaysanan niyaddeeda ku soo dhacaan ha noqdo shaki diineed cibaado iyo weliba caqiido kale isla su-aasha mid u dhow ayaa waxay leedahay ma loo qabanayaa oo lagu cadaabaya qofka madaxiisa waxa ku soo dhaca oo soo gala laakiin uu niyadda ka necab yahay waxaas oo uu rabo mar walba inuu iska difaaco iska dafciyo dabcan waxaan u fahmayaa shakul caqiida ama shakul cibaada wax la mid ah بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات قفك وحيالها كسر دعوه أما الشبهات كسر دعوه قفك الله قبل مايو هدو دريم مايا حتى إنه وحيه وح خطر أو مركا قلبك سكرنا حي وح كسر دعم حي وحكن وكبو ذا معناها وحوا إيمانا كجرا قفكاس مركا هوا جستاس الله قبل مايو إله وقبل ما سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحيالها صور دعاية سكما علين كرتيد marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii wuxuu ku yidhi waa muslim wariyey qofka nin baa kaga sheegtay yaa rasuul allah waxyaala waxaa igu soo dhacay aan ku hadli karaynin marka wuxuu yidhi awajadta ma heshay waxaas qalbigaadii ma ka heshay wuxuu yidhi marka calaamadda iimaanka way taa marka waxyaalahaas kugu soo dhacay lagu qaban maayo waxaa rabaa inaad iska radisaa la rabaa markiiba oo aad maaragtay ka cuudubilaysato إلهنا كو قبر ما سبحانه وتعالى بدنا كو صح حتى وحي النبي عليه الصلاة والسلام شيطانك وحو كليه هي من خلق كذا ما خلقك وحيا أبوري وحيا أبوري إلى مركز دبوك ما خلق الله الله يا أبوري إلى وكير هذا مركا هكا عوذ بالله سير النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحيا لهاس لقو قبر مايو لكن وحا وساوستي الشبهات كو كينايو مركا هو ركفقاو سكي إلالي مارساسو كله waxaa akhrisataa culuumta islaamka akhriso axaadiista nebiga akhrisa calayhi salaatu wasalaam qur-aanka dhegaysa tafsiirkiisa cajaladaha cilmiga dhegayso yacni qalbigaada ha ku dhaco insaanku waa daciif qalbigiisa haddii marka adigu aad isu bandhigto sida shalay sheekh yuusuf sheegay hilib haddii lagu soo dhigo adoo baahan meesha yacni ha cuni lagu yidhaahdo ma yeelaysa maya haddaad adigu fitantii isu bandhigto adiga oo adiga aad maaragtay cajaladihii dhegaysato ka hadlaya waxyaalaha falsafada oo buugta falsafada ah akhriso oo aadan awoodna u lahayn inaad iska waxayso adaa wasaawista isku furayo marka meelaha wasaawistana ka dheeraaw oo iska ilaali waxyaalaha yacni caqiidada la xiriira oo falsafada ah marka looma haysto qofka waxa qalbigiisa ku soo dhaco hadduusan samayn ama ku dhawaaqin wallahu aclam su-aal ka mid su-aalaha ugu dambeeya waxay leedahay oo iyaduna dhowr su-aalood oo isku dhafan ah maalin ayaan xaaskaygu waxa igu tiri tuko markaas ayaan waxaan ku yidhi waxna tukan maayo
isla su'aal kale oo u dhow ayaa waxay leedahay waxa ay tiri xaaskaygii tuko ma tukanayo ayaan idhi ma gaal baa tahay bay tiri gaal baan ahay ayaan ku idhi ridow miyaa بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أرجع سويرين وأري حن يهي واديات حن ما تكن أيانا إنه يرهد ما هين هدو ولا جيدو أرجع لفظ كفر أواي وإذا ما تكن صلاة يعني مرة هدو ولا جيدو صلاة واجب يقول معها واجب إنكرسية هي لا شك إنه كقالوا بيغفك ودين تكبحايو لكن عنادي حناقي مرة قرك هدو سجير هذا قفكي يعني والذنب وين وجريمة أو قفك إلهي وقته بكينا سبحانه وتعالى وهكسر نقضه قف كان هدا أركته لمرة بإنات كريح ده واحد قال لي ما كينايو هدي أركت إنك إنه منكر دا كربته إنه قال لي ما سيجلاي علماء الحيرات أهل العلم جا فرها كقاد أو كذي ذنبي كسوين هدو قفك كبقيس إنه سيجلو qaabka aad ugu sheegaysana qaab ha noqdo hagaagsan oo maaragtay marka ninka dadka noocaasa waxaan ilaa ereyadaas ha ku hadlin oo ilaahay nooga toobakeen subxaanahu wa tacaala waa erey xun oo gaalnimo keena haddii qalbiga uu kaa jiro oo wujuubkaad inkirsan tahay marka yacni laakiin waxay ku xiran tahay marka qofka xaaladiisa gaar ahaan ay ku xiran tahay haddii aad wujuubka aaminsan tahay salaada oo aad xaqa ogoshahay yacni waxa waaye marka إن شاء الله تعالى ولي إسلام كأتكو باقي تهي مركا هديهن سداس هدا عروتنا إسكا إلى أريد كفرقة إسكا إلى المنافقين توحلوية قانا وإذا خاصم فجروا النبي عليه الصلاة والسلام منافقة هدو مرن قالوا فاجر المسلمين قال لهم ودعايا ومرن عادي إسكاها مركا وحوق ورما برا دينتي وحشيك سورن بولي مارتي أما ما تكال وغيري ناكتا هذا الكذا ديدي سأيني مقشو وشيطان نمو وايتاس ناكت هدي حاسك هدي كو أمرتي ونعمة وحاسك هدي وصلاة كو أمريس النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها زوجة الصالح النبي عليه الصلاة والسلام الدون كو وحي الراحة أي رواية وحان أقونا زوجة صالحة وهدي مارت تعينه على دينه قفك دينتي سووك على المينيس مرك هدي صلاة كو أمرتنا أول جواب تمتو كان أيوه بس هذا كتب بكين لكن قال من نقونيس إن شاء الله سؤال شكوحك توحوي dad ayaa jira ay dhacdo mararka qaarkood inay u gudbiyaan dacwooyin kala duwan dadka gaalada ama wadamada lagu nool yahay qarbiga iyagoo dacwadaas ka gudbinaya dadka muslimiinta si loo xiro maraakista masaajida iyo dugsiyada iyo meelaha kale ee goobaha islaamka lagu barto ama manfaca muslimiinta u leh dadkaas ujeedo kastaba ha ahaadeen xukunka qofka noocaas talaabooyinka noocaas qaada muxuu noqonayaa بسم الله الرحمن الرحيم وحكم إذا نواقض ما قاينا الشيء إن كلا وحلا إسلام كبرية وحكم إذا قف إنه قال الله صفته ومسلمين تكسو دولو مسألة ناقض أواي وتوحيد كيس قف كبرينايو ومسألة أساسية وعلماء لأنه واسكر عسيه مرك هذه قفك وقال الله صفته إسلام كسو دولو وحنا نقنا كافر ونقنا دين تواكب بحياة توحيد كيس نوابوري مرك أي قف كستا أو مسلمين تجاسوس محاو جاسوس مسلمين محي شيغا يعني قرآن الله برنا يا سنة النبي الله برنا عليه الصلاة والسلام دوكسيه سودغان حديث النبي سو اخنا وا دين تودي محاو شيغيسا ادي قال هذا محاو شيغيسا marka gaal sheegis waa nacib islaamka aan nacibta warartay inuu xal la burburiyo marka qofka noocaas oo jaajuuska waa gaalada waa kaafir waay diinta waa ka baxaya qofka ama qofka gaal la soo safto oo gaal la soo duulo waa buraya tawxiidkiisii wuxuu aaminsan yahay qofka maxay yihiin hadii sheega bal yaani waxa qofka muslimiinta aan rabin dugsi in la dhigo muxaadaro in la dhigo quraan in la barto dadkii ka sheegay raba in la xirxiro dadkii annaga mujtamacan aan ku leenahay qarbiga diinta ilaahay ugu yeerayna diinteenana waa xifdisanayna inta xifdin karno inta ma argagixisa inta argagixisa haday tahay يعني isku si ma fahamsan argagixisada marka oo nin walba diintiisa waa haysta Jewisha joogo diintooda waa haystaan Kristaanka oo boqol nooc ah joogo diintooda waa haystaan iskooladoodii maalin dhaweyd waxaan akhrinay journal qolo kaniisadaha nooc ka mid ah oo 200 oo urur Soomaaliya ku leh baan akhrinay wixii yiraan naagaha xijaabtaan ay dhaheen jilbaab naag jilqaaqta soo sawireen oo xataa indha shareer qabto meelaha ilaaha ka u joogo oo saliibkii wad waxay muslimiintu waan dhaxgalna saan ku dhaxgal lahayn ba waa inaan maartay sameeyna baani mid xataa aan qaadana jilbaabkii dheh waxna waa kala yihiin muslimiinta maxaa yeelay saddex ilaah wax rumayna ma jiro mid faasiqo
khamre iyo fasaad iyo dhilanimo doonaya ma aha marka yani qofkii jaajuusa muslimiinta jaajuusa waa kaafir waay diintu ka baxaya wuxuu sheegaana waa wax been ah beenuu sheegaa markuu xagga tago marka maxaa muslimiinta u baabi'inaysa oo u doonaysa u jaajuusaysa marka qofka diinkiisa waa buraya dabcan qofka noocaas oo kaleenta wuxuu hadafkiisa yahay hadii la weydiiyo dadka xijaab waa argixisa waa dadka dugsiyada waa argixisa waa waxaas uu ku sheegaa meesha ama war uu duubaya oo hadhowtii si kale asaga uu tarjuma afkooda ilaa ma ogin ilaahay baa og wuxuu sheegaya isagii ilaahay isloog ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa qofka muslimiinta maanta iyagoo xaaladdaa ku jiro ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay wax asaga ku filan shar ku filan ilaahay inuu qoorta u geliyo oo wax muslimiinta ilaahay uga kaafiyo ilaahay inuu ku rido subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta dhib ma qabaan mujtamacaadka muslimiinta waxiidaa wadnaa khayraa wadnaa waa u sheegayna dadka reer Sweden iyo dadka reer Mareykan iyo dadka reer Ingiriis tawxiidku waa fidinayna ummad badan ilaahay ku badbaadiyay sababta muslimiinta wax kale miya wariyaa wax kale garanayo wax kale ma garanayo aniga wax kale ka hooseeya ma jiro intaas marka wax ku raadsanaya oo uu leeyahay lacag lagu siiyo waxa lagu siiyo intaas wax ku raadsanaya waa qof shakhsiyadiisa dhimatay waa muwaafiq qofka noocaas oo kale inta marka insha Allah taala xukunkiisa sunnah waayahay inagoo soo gaarnay gunaanadkii gabagabadii waxaan jeclahay in daqiiqada ugu dambeysana hurdadii ka kacayso su'aashan baan idiin soo wadaa waxay leedahay assalaamu calaykum buu leeyahay ninka dhallinyarada su'aashan soo qoray waxaan ahay wiil dhallinyaro oo muslima gabdho doona dabcan guur doona laakiin ceebtaydu waxa weeye marka aan arko gabdhaha muslimaadka ay jilbaaban iyo xijaaban waan ka cabsadaa hawsha iyada ah waxaan rabaa in layga caawiyo oo sidii aan arinta uga gudbi lahaa laygu kaalmeeyo sheekh wali tafadal mashkuulan ra'yigaaga iyo taladaada bismillaahir rahmaanir rahiim barakallahu fiihi ninkaas waa nin raba inuu dhowrsado thalathun haqqun ala allah an yu'inahum saddex ilaahay xaq ugu leeyahay inuu kaalmeeyo waxa kamid ah ninka doonayo inuu guursado oo dhowrsado marka yaani qofkaas khayr Allah siiyo la shaka gabdhaha muslimaadka haybay leeyihiin haybaday leeyihiin qofka waa baqaya ama inuu kala sheekaysto guur ama inuu ku soo qaado waa laga yaabaa waana wax fiican waaye inkastoo la arkay gabdho badan oo hadda jilbaabkii mararka qaarkood waxba kama hooseeyaan in badan waxaa arkaysaa akhlaaqdooda aad u hooseyso jilbaabkii korka wata laakiin waxay afkooda ka soo baxayo ka afxun midda qaawano bannaanka joogto waa jira laakiin inta khayrka laha badan waxaan rajeynaa insha Allah qofkaasna inuu ilaahay hagaajiyo hadduu tarbiya islaamka helo marka akhas waxaan leeyahay bal culimada la soo xiriir sheekh Yuusuf iyo ragga maarata culimada la soo xiriir insha Allah taala gabdhahana waa gabdho walaalaha ah wa'tul buyuta min abwaabiha guryaha ka imaa ridooda gabartu reeray leedahay dad ay leedahay maarata haddaa guurdoon tahay waa sahana loo dirsadaa xataa gabdho walaalaha loo dirsadaa yacni waa la raadiyaa adigoo aan marin duruq aan sharci ahayn adigoon marin marka ha baqin waxbana yani ha ka cabsoonin haddaa guurdoon tahay in badan oo guur doonayso gabdhaha walaalaha ka mid ah ayaa jiro marka insha allahu tacaala haddii aad ka baqaysana u kaasha culummada iyo dadka wadaadada u kaasha insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu ku siiyo zawja saalixa وتقية وبر إله نكسي عز وجل waxaa ku qoran ducooyinkii dabcan sida caadadu ba ay tahay ilmaha ayaa iga ilmaha